Culeysyada dunidan kama dhammaadaan, kaba sii daran xanuunka mararka qaar uu dareemi karo qofka aan la noolayn labadiisa waalid. aniga hooyo aabba lama soo korin. intaan waxaa la soo geysiisay dad kala duwan. habartaysa intaysa dhimanin qabrigeeda allah u qaboojiyo. imaysa tusan ciriiri. Ereyada kooban ee dhagahaaga ku dhibcay waxaa laga yaabaa inay ku damqiyeen. weli bannaanka ayaad ka joogtaa qisada ku dhacday gabadhan, bal in yar wakhtigaaga inaga sii si inta qisada ka dhiman aad inoola dhammaysato. haddii aad wax badan qososhay, haddii wax badan aad faraxday, haddii wakhtiga uu ku saaciday oo dhoola caddayntaadu dahab ay ku ahayd, gabadhani muddo badan waxay maraysa marxalado kala duwan oo xagga nolosha la xiriira. dhibna uma uusan yareen, qalbigeedana waxaa buuxiyey haraadiga nabarro ka soo gaaray arrimo ay wehel u noqotay. magaceedu waa Firdowso, waxay baahinaysaa dhibka ku baahay qalbigeeda una diida hurdada. markaan way calool hadlaysaa, waxay gabadhan cabiraysaa xaalkeeda. gabadhan ayaa ku barbaartay meel ka baxsan halka ay ku noolaayeen labadeeda waalid, balse gacan naxariis oo aan waxba u dhaamin midii hooyadeed ayaa heshay, oo waxaa kuriimadeeda gacan weyn ka geystay habaryarteeda. hubaal gabadhan waxay qirtay qiimaha wacnaa oo ay lahayd habaryarteeda. waxay u ahayd hoos ay harsato, waxay u ahayd sidoo kale hoggaan ay ku dayato, iyo sidoo kale naxariis hooyigeeda. balse waxaa geeriyootay habaryarteeda, waxaana gabadhii ay gashay marxalad kale. waxaa ka soo xirmay albaabadii farxadda. socodkii rajada ayaa murugo isugu beddelay. waxay la kulantay culaysyo hurdada u diiday. waxaa lagu qaban jiray howl kastoo guriga ay ku nooleed ka soo baxda. cadaadiskay la kulmaysay waxa uu ahaa isdabajoog. waxay tilmaamaysaa in fursad ay ku nafisto ay weysay. ma jirto ku hoos noolaanshaha hooyo agteeda wax ka qiimo badan. haddii Alle uusan kuu qadarinna fursaddaasi, Allow inaga dhig kuwii ducada hooyo ku hela harsi adduun iyo mid aakhiro. aniga hooyo aabba lama soo korin. intaan waxaa la soo geysiisay dad kala duwan. habartaysa intaysa dhimanin qabrigeeda allah u qaboojiyo. imaysa tusan ciriiri. imaysa tusin hooyo inay iga maqan tahay, waayo ayadaa hooyo ii ahayd. hataa hawri ma dhihi jirin, hooyo ayaa dhihi jiray. si walba aan u shaqaynaa kor ayay igala soco jirtay. markaan xanuunsadana agteeda ayaan imaan jiray. laakiin markay iga tagtay ilaahay oofsaday, aniga ciriiri xun ayaan galay. farxaddii ayaa iga guurtay, waayo ayna hooyadeeda la joogin. ayada hooyada ii matali jirtay. ayada markay dhimatana ciriiri fara badan ayaan dareemay run ahaantii. hooyo qabrigaada ilaa ku waasayo, walaa mar walbaad soo xasuustaa, waan u duceeyaa. qof ayada ka fiican ima soo marin, mana isoo mari doono. taa soo marana mid ka xanuun badan malaha, waayo dadka aniga la noolaa shaqaalahooda camal aa u ahaa. way igu shaqaysan jiray, way i qayaaneen, laakiin maalintii min aakhiri ilaaha ka jaraayo. hooyo maxaa ii qadlaysay? hooyadii labaad ahayd. ani hooyaday dhashay mana ii soo korinin. kabacdi waxaa faraha u galay dad qiimahayga aqoonin. inta ay igu shaqaysteen ayay dusha iga toogteen. hataa meel inta ii furay ma dhihin ka shaqaysta. shalay markaani la joogin shaqaale camal aa u shaqay jiray, dharkaata waa u dhaqi jiray. laakiin waxaas dhan way iloobeen, ani ma iloobi. aakhiro maalintii yoomal aakhiro ilaaha noo qarqaadi doono. qofka aniga i xumeeyo oo ballanta iga baxay, kaasna ilaaha ayaa balan la gali doono, waayo ma cafinin. hooyaday markay cilaysan adduunka aniga waa isdhiibay. haddana waxaa noqday seegseegaa noqday, waayo seegseegnimada ilaa hadda ma iska deynin. xaalaya qofkii hooyo haysanin
qofkii ka fogaadana dhibkaan u dambayso. Aniga hadda go'aan waxaan ku gaaray inaan hooyadeeda dhaho maxaa anay sidaan meeshaan igu soo dirto oo waraabayaasha joogaan. Ima dhalan miyaa inaan dhaaraba waayo cidladan aniga uma adkaysan kari haddana iyadoo u socdaane dad qiimeey